السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وناكسن دوضة يا قيمها يقدرين تمضن كنا سودوده ورركا قدام بيس عالمك أنا مركاسي إذا كوسو قد بدنا كوس وجوحي صاحب بدن وحنا كده ونسون سماري باور تي في وها ورركا إذا سوي كذا يعني جو عبد الرحمن ظاهر ولا هلا باتنك جنوري لابد يكون إلى هلا باتنك قربضة ورركا وها كمد مركب كدجال كم رجن كأبراهام وجاري برجع waxaana uu ka soo dhaqaaqay Pacifica dhinaca kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa wacad ku maray hadii Iran lagu soo gardarado ay ka qowmeyn doonaan kuwa gardarada ku soo qaado maalmahani waxa is hayay oo markaasi hanjawaado hawada isku miranayay Iran iyo Israa'iil iyo Mareykanka halkaas oo markaasi dagaal laga yaabo inuu ka dhaco laakiin dhawaan ay ahayd kuwa qaliidka in Mareykanka ay u sheegay in dagaalka uu dib u dhigo ama uu ka joojiyo hadii marka ay sheegaan in dagaalka halka uu ka dhaco uu baaxad saameyn weyn uu ku yeelan doono laakiin Iran waxa sheegtay hadii dagaal lagu soo qaado uu gobolka guban doono aan ku bilaabado marka dagaalka Mareykanka ee Abraham ayaa markaasi gaaray bariga dhexe sarkaal Mareykan ayaa marka xaqiijiyay telefishinka CBS in markabka diyaaradaha dagaalka xambaaro ee Abraham uu gaaray halka uu sheegay taliska dhexe ee Mareykanka ee bariga dhexe sida warbixintan uu ku sheegay markabkani wali si buuxda meesha loogu talagalay uma uusan istaagin taasoo macnaheedu uu yahay inuusan wali gaarin goobta markaasi ugu dambeysay ee loo aqoonsaday ama loo qorsheeyay waxa uu yiri qiyaastii 2 toddobaad ka hor dagaal ayaa Iran in lagu qaado la doonayay laakiin dib ayaa loo dhigo yiri markaasi waxaana isa soo tarayay hanjawaadaha hawada ay isku maranayaan ciidamada Mareykanka iyo ciidamada Iran oo sheegan hadii markaa ay gacanta isdaraan oo midka kalaba uu ku gudanayo inuu cagta mari doono qiyaastii 2 toddobaad ka hor kadib markii ay cirka isku shareystay xiisadaha markaasi u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka taasoo markaasi ka lalatay mudaharaado Iran ayaa keentay in markabka uu u dhaqaaqo gobolka ee bariga dhexe halkaas uu ka soo dhaqaaqay Pacifica madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in markabka weyn uu ku sii jeedo dhankaasi iyo dalkaasi Iran balse uu rajeynayo inuusan wasida hadalka u dhigay aan loo baahnayn in la adeegsado dhinaca kale maanta waxa hadlay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran waxa yiri Iran hadii lagu soo gardaroodo yiri ama cid kasto ee gardaraha Iran ku soo qaado waxay ka bixi doontaa yiri jawaab laga qomameeyo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil ayaa markaasi kaga hadlay war-saxaafadeedkii toddobaadlaha joogistaanka gobolka ee joogan militariga Mareykanka taasoo markaasi ay sii kordhinayso xiisadaha markaasi labada dal u dhaxayo Iran waxa ay ku korsantahay yiri awoodeeda waxaana ay xasuusantahay yiri khibradaha bishii June waxaana ay bixin doontaa yiri jawaab ka xoog badan midii dabcan dagaalkii hore oo markaasi uu sheegay Israa'iil iyaga ku dhaxmaray waxa uu yiri Master Ismaaciil tusaale oo u soo qaatay 12 maalmood ee socday dagaalkii dhaxmaray Israa'iil waxa uu yiri hadii dagaal lagu soo qaado Iran waxaan bixin doonaa yiri kii mid ka adag waxaana isku diyaarno yiri inaan awoodin dibadda keeno oo annaga aanan waxba la harin waxa kale uu sheegay in Iran ay waajahayso yiri bilihii u dambeeyay qatar markaasi cusub ay kaga imaanayo Mareykanka iyo Israa'iil waxaana uu sheegay in wadamada gobolka ay si wanaagsan ula socdaan in qataraha ee gobolka aysan ku ekaadin Iran kaliya balse ay gubanayso dhammaanba gobolka taasoo markaasi uu ku sababayay hadii Iran weer lagu soo qaado aysan ku koobnaan doonin waxa uu taasi ku daray in maraakiibta gobolka la keenayo ay qalqal gelin doonayri Iran isna difaaci doonto waxaan naga daawanaysan waa Soomaali Power warwarka lamida intaan ku wada kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh subscribe saar oo anagana dhiirigeli si aad u hesho wararkii u dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya waan mahadsantahay daawade